السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مeel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada warka caalamka ee TV-ga Universal oo London idinkaga imanaya anigoo Ridwaan Xaaji Cabdi Welina aan diyaar u ahay. Qodobada wararka idinku maqli doontaan waxaa kamid ah magaalada Muqdisho oo maanta lagu dhaariyay 211 mudanayaasha baarlamaanka cusub ee dawladda ku meel gaarka iyadoo gudoomiye ku meel gaar ahna loo doortay odaygii ugu daada weynaa ee ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka cusub ee maanta lagu dhaariyay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ammaanka guud ee magaaladaas oo iyana si weyn wadooyinkoodu ay u kontroolayaan ciidamada midowga Afrika iyo kuwa dawladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya iyadoo shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ciidamada midowga Afrikana maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay. qodobada kale idin hayayna waxaa ka mid noqon doona munaasabadaha ciidda sidii shalay looga dabaaldegay magaalooyin waaweyn oo London ay ka mid tahay iyo guud ahaan sida maanta magaalooyinka qaarkood wali damaashaadyadaasi ay uga soconayaan iyo dalka Syria oo dad badan lagu laayay. qodobadaas oo dhan u diyaar garooba goordhow iyagoo faahfaahsan. markale kulanti wacan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ciid wanaagsan. magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulankii ugu horeeyay oo si rasmi ah loogu dhaarinayo mudanayaasha baarlamaanka dawladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya ee matali doona dawladda rasmiga ah ee dalka Soomaaliya ay yeelanayso iyadoo gabi ahaanna la soo afjaray xilligii ku meel gaarka oo maanta oo 20 ah horay loogu qoondeeyay amaba loogu qorsheeyay. in badan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka maanta dhaarintooda ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa dalka Soomaaliya ay ka saaraysaa 8 sanadood oo dalkaasi uu ku jiray xilli ku meel gaar ah iyadoo dawladaha caalamka gaar ahaan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay gargaaraysay dawladnimada iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda sidii ay muddooyinkaasi u shaqayn lahaayeen. laakiin dawladdan rasmiga ayaa waxay noqon doontaa mid la filayo in gabi ahaanba Soomaaliya ay ka saarto dhibaatooyinka muddada dheer ay ku jirtay. inta badan guud ahaan waxaa si weyn loo ilaalinayaa amniga guud ee magaalada gaar ahaan wadooyinka waaweyn iyadoo loogu talagalay in xilliga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynenimada dalka Soomaaliyaba ay si rasmi ah u qabsoonto muddo kooban gudaheeda. waxaana guud ahaan dalka Soomaaliya xilligan laga dareemayaa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isbedel xoogan oo siyaasadeed in dalkaasi uu ku tallaabsado muddo 22 sanadood oo burbur xoogan kadib. dhinaca kale midowga Afrika ciidamadooda ayaa iyana waxaa maanta shir ay ku qabteen magaalada Muqdisho ay guud ahaan uga hadleen sugitaanka arrimaha amniga iyadoo magaalada Muqdisho bishii Agost sanadka 2011 ay ahayd markii ururka Al-Shabaab magaaladaasi ay isaga baxeen. waxaana guud ahaan dhinaca kale magaalada Muqdisho laga dareemayaa in si weyn ay ugu diyaar garoobayaan ragga musharaxiinta madaxtinimada dalka Soomaaliya sidii hoggaanka dalkaasi ay wax uga bedeli lahaayeen iyadoo dhinaca kalena marka la eego ay sheegeen mas'uuliyiinta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa inay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo qaswadayaal ah oo loo arko inay hor joogsan doonto hanaanka cusub ee siyaasadeed ee loogu talagalay in Soomaaliya lagaga saaro fowdada dheer ee muddada xoogan ay ku jirtay. mudanayaashan cusub ee baarlamaanka oo la filayo inay noqdaan kuwa tayo leh isla markaana wax badan ka bedelan mudanayaashii baarlamaanka ee 8 sanadood ee ku meel gaarka dalka ka shaqeynaya ayaa la filayaa iyana inay qayb ka qaataan sidii loo sugi lahaa Soomaaliya inay yeelato mustaqbal ifaya oo jiilashoodu ay ka faa'iideystaan. iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyayna guddiga farsamadu ay tallaabooyin ka qaadeen xubno la sheegay in qaarkood lagu eedeynayay inay dambiye galeen oo laga saaray baarlamaanka waxaana arrimahaasi oo dhan ka sii horeeyay iyana ansixinta dastuur rasmi ah Soomaaliya ay yeelatay. haddaba goor dhaweyd ayaa khadka taleefanka waxaan kula xiriiray wariyaheena Axmed Nuur Cali oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana weydiiyay maadaama uu ka qayb galay kulankii maanta lagu dhaarinayay 211 mudanayaal baarlamaan ah inuu warbixin iga siiyo sida ay arrimahaasi u dhaceen. xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo gaarayay ilaa 211 xubnood oo ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. munaasabada dhaarinta Ridwaan waxa ka qayb galay madaxda ugu sareysa dawladda waqtigoodu si dhamaanaya ku meel gaarka
waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa munaasabada wakiilo ka kala socday beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo sidoo kale dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya oo iyagu goobjoog ka ahaa munaasabada raarinta ah ugu horeyn munaasabada waxaa khudbada ku furay mas'uuliyiinta guddiga technical selection committee la yiraahdo guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka ah kuwaasi oo sheegay in kadib dadaal dheer oo ay galeen iyaga iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka maanta ay suuro gashay in la dhaariyo xubnaha tiradooda intaas ay gaarayso waxaa xusid mudan in xubnaha baarlamaanka ee maanta la dhaariyay ay qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda sida gudoomiyaha baarlamaanka kan ka horeeyay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo ra'iisul wasaare Professor Cabdiweli Maxamed Cali oo iyana xildhibaanada la dhaariyay kamid ahaa waagartay yaa loo doortay gudoomiye ku meel gaara baarlamaanka hadda gudoomiye iska soo dhaxleen xildhibaanada baarlamaanka oo ah qofka ugu da'da weyn mudanayaasha maanta la dhaariyay oo lagu magacaabo Generaal Muuse Xasan Cabdulle ayaa goobta waxa ku soo bandhigay guddiga technical selection committee kuwaasi oo sheegay in ninkani uu yahay qofka ugu da'da weyn isla markaana si gudoominayo howlaha baarlamaanka inta laga dooranayo gudoomiye rasmi oo baarlamaanku yeesho waagartay mudanayaasha kale ee baarlamaanka ee dhiman ee weli aan la dhaarinin goorma la soo dhameystiri doona iyana waxay sheegeen dadka meesha ka hadlay in la soo dhameystiri doono waqti dhow sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sii ambaqaadi doonaan howlaha baarlamaanka xubnaha cusub gudoomiyaha ugu da'da weyn ee la doortay caawa Ridwaan oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa la doorto 26 bishan aynu ku jirno August waxaana uu ugu baaqay tarxiinta uu tartamay xilka gudoomiyaha baarlamaanka in intaan la gaarin waqtigaasi ay soo gudbiyaan araajida ay ku doonayaan inay baarlamaanka ama gudoomiyaha baarlamaanka ugu tartamaan بريتا هينا دوان حبنا برلمان كعصب ولقوا دورنا يجودية وجودية دورشة قدوميها برلمان كي يكون حجاني دي سردوان. واقرت قرب الله فيلا يا مركز دورشة مدحوينها اللي سد يارنا إنا دعضينا. ردوان تاس لما شيئين وقت دقة يسول لكن وحاكلية الإعلامية وقدوميها برلمان كدورشة دي كحجاني دي سو دقة يسلح لواتن كديشن مدحوينها سومالية وقطبط إسنا قوابت كجيري وحاو وهم بليي حل بانا لداريي إساقونا كواد دردارمين أرين waryaheena Axmed Nuur Cali oo magaalada Muqdisho ku sugan oo aan ka wareysanayay dhaarintii maanta mudanayaasha baarlamaanka cusub lagu dhaariyay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo looga diyaar garoobayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada waxaa dhinaca kale shir jaraa'id si wada jira magaaladaasi ugu qabtay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo taliyayaasha ciidamada midowga Afrika ee magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen inay si weyn u sugi doonaan amniga guud ee magaalada Muqdisho loona baahan yahay in wax laga qabto warbixintan waxa soo diray wariyaheena Cabdilaahi Axmed Nuur iyadoo dalku uu diyaar garoobayo doorashooyinka madaxtinimada ee dalka isla markaana xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya ay iminka yihiin kuwa xasaasi ah ayaa madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed kulan uu la qaatay taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya waxa ay kaga wada hadleen arrimaha ammaanka iyo siyaasadda halka ay marayaan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo ammaanka si loo xoojiyo nabadda iminka la haysto waxa uuna ugu baaqay musharaxiinta ku sugan magaalada Muqdisho inay mas'uuliyadooda qaataan kana hortagaan wax walba oo dhaawici kara ammaanka ka jira magaalada Muqdisho isla markaana ay noqoto siyaasadoodu mid nabadgelyada ka shaqeynaysa maadaama la joogo marxaladii kala guurka dhamaashadeedii oo caawa ay tahay 20 August waxa ahaa kulan aad iyo aad muhiim u ah. Since tonight is the last day of the transitional and the meeting tonight was a very important meeting. Waxaan si xoogan uga wada hadalnay wax walba inay u dhacaan sida loogu talagalay. We strongly spoke about the everything has to be taken place the way it's supposed to be. Cidna inaan loo ogolaanin inay processka nabadda ee socda ay we're not allowing to anyone who trying to stop this procedure.
qofna inay isku daydo inay si gaar ah uga faa'iideysato si markaas ay u dhibaatayso processka nabadda. Anyone who tries to take an advantage in order to stop this procedure should not allow. heshiisyadii la soo gaarayna siday ahaayeen in loo fuliyo. All the agreement should be proceed as same as we agreed. odayaasha dhaqanka in lagu ixtiraamo soo xilidda xildhibaanada sidii la isku ogaa. The traditional leaders should be respected for selecting of the MPs. technical committee-ga in ayagana lagu ixtiraamo shaqadooda. And technical committee to respect their own duty. lana hubiyo iyaga laftigooda inaysan xuduudii loo dhigay aysan dhaafin. And to make sure that they have to stay their own duty. waxa khilaafaad oo jirana si wanaagsan loo xaliyo. taliyaha ciidamada midowga Afrika AMISOM oo isna hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay bisha barakeysan ee Ramadaan sida ay muslimiinta gaar ahaan Soomaalidu ay u dhameysteen isla markaana ay uga shaqeeyeen maalmaha ciida ah ammaanka magaalada Muqdisho. waxa uu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka isagoona tilmaam in AMISOM ay qaad doonto doorkeeda isla markaana ammaanka wax weyn laga qaban doono waqtiyada ay socdaan doorashooyinka. The transition period will not be disrupted. Transitional period we want to make sure that the people's needs are met. We want to make sure that everybody has been represented correctly. And the international community, even with AMISOM, is going to respect the outcome of year's election. International community As the elders are still continuing giving in the list, we shall have all the respect of what they will be presenting. And we are really behind you, people of Somalia. It is my appeal that don't cause any commotion, things will be solved amicably. dhinaca kale madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed ayaa isna maanta kula kulmay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho taliyayaasha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. goordhowna waxa ay noo soo socotaa warbixino iyana ku saabsan munaasabadaha ciida oo wali loo dabaaldegay magaalooyinka qaarkood iyo dabcan shalay magaalooyinka sida weyn loogu dabaaldegay oo London ay ka mid tahay. laakiin dabcan London oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay ciyaarihii Olympiga ee danida ama dawladaha caalamka intooda badan ay ka qayb galayeen waxa kale oo iyana soconayay kulamo ay yeelanayeen hal abuuro iyo suugaanyahano ka socday caalamka taasoo iyana qayb ka ahayd inuu barbar socdo ciyaarihii Olympicada ee magaalada London lagu soo gabagabeeyay. kulamadaasi caalamka suugaanyahanadooda ay ku kulmayeen waxa Soomaaliya uga qayb galay Abdullahi Bootaan Xasan oo kamid ah hal abuurayaasha Soomaalida. goordhaweyd ayaan weydiiyay kulanka la soo gabagabeeyay iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa. bismillaah waa mahadsantahay Ridwaan waxa weeyaan waan kaaga mahadcelinayaa maaragtay sida sharafta leh halkan ugu soo dhaweyseen adiga iyo maamulka iyo howlwadeenada Universal dhamaantiin waa idin mahadcelinayaa. sidaad ka warhayseen ba waatii ay jirtay munaasabadii poetry partnerships oo suugaanta Olympiga oo wadan walba hal qof uu maaragtay ka socday. partnerships waa buur iyadoo Greek ku taalo oo sida Olympiga halka uga yimid oo kale. marka waxay ahayd munaasabad lagu sheegay munaasabadii ugu weyneed adduunka oo suugaan ahaan loogu kulmo oo dhinac socotay ama la mataaneysnayd Olympiga. marka waxyaabo ay kaga duwaneed waa jiraan sida Olympiga dhacdooyinkii lagu yaqaanay ayadu kamay dhacaynin London kaliya waxay ka dhacaysay London iyo gobolada wadanka Ingiriiska oo dhan. meesha Olympiga London ku koobnaa meesha Olympic Park deganaayeen anagu South Bank Center halkaas aan deganayn. meesha Olympigu waa asaga qofka uu wax ka gaara level sare ay ayagu abaal marinayaan waxa weeyaan qofka iyo wadan magaciisu wataayo ayada bilada iyo lagu bixinay laakiin meeqaankaas aad ka gaarto ama aqoonsigaas suugaaneed waa mid uu qofku oran noqonayo wadankiisii oo macnaha wasaarado waxa jira garab socday qolo walbaaba hay'adaha dhaqanka wadankiisa ayaa maaragtay garab taagna.
kolley anigu waa waxa weeyaan haddee safaaradna halkaan ma jirin dhowr jeerna waa laga codsaday inaan hay-adaha dhaqanka oo wadankayga aan u fududeeyo inaan ku xiro marka hadda waa iska garan karnaa duruufihii jiray inkastoo aan xiriir la sameeyey maamulka dowladdii ku meel gaarka ahayd laakiin dhulka isumaanaan dhigin oo wixii aan buuxin karno ama dowlad ahaan ama qof ahaaneed waa buuxinay inta badanna gobolladii ka dhacayso anu North Ireland laba meelo ah iyo Nottingham iyo Colnbrook intaasaan ku maqnaa dhulkaasna waa dhul aan maaragtay Soomaalidu bas u deganeen aduu Nottingham ba Soomaali xoogaa u degan tahay oo si fiican ay uga soo qayb galay laakiin labadii meelood North Ireland oo Derry iyo aan tagay Soomaali ma jirin marka maadaama dhacdadaas halkaas de saxaafadii Soomaalidu aysan joogin ilaa iyo 4-5 documentary oo laga soo duubay oo laga soo diyaariyay in horta aan mujtamaca u soo bandhigo talabaadna in wixii ka soo baxay natiijadii in aan dadka ugu hambaliyeeyo inaan meesha ugu sareysa aanu galnay oo waxa ka soo baxay waxay ahaayeen buuga world recordka iyo buuga sideedaba suugaantu Olympic-da kale waxay kaga duwan Olympic-ga waa tartan asagu tanna waa kala xulis oo saas u kala duwan tahay markii horena buugaas world recordka oo 200 iyo 4 wadan loogu talagalay ayaan ku soo baxnay 204 markii la kala xulay official dadkii wadamadii loo aqoonsaday oo 17 ah oo buugaas lagu soo saaray shirka magaciisi wato oo buurtii magaceedii Parnassus wata 17 wadan haddana waa ku jirnaa Soomaaliya Cabdullaahi Bootaan Xasan oo kamid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka suugaanyahano ka socday dowladaha caalamka oo magaalada tan London iyo magaalooyin kale oo dalkan Britain lagu soo gabagabeeyay Soomaaliyana u matalayay aan dhinacaas uga gudubno ciidaha dabcan magaalooyinka sida weyn looga muujiyay ama looga xusay waxaa kamid ah magaalada tan London oo kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah ay shalayto isugu soo baxeen deegaanka Ealing wariyaheenna Cabdixafiid Maxamuud Jaamac ayaa ka qayb galay oo warbixinta noo diyaariyay ciidul fidriga ayaa maanta waxaa loogu ciiday halkan si aad iyo aad u weyn degmada Ealing gaar ahaan baagan weyn ee Ealing Common masjidka weyn ee Quba ee ku yaala degmada Hayes ayaa soo qaban qaabiyay si qurux badan ay u dhacday dadweynihii Soomaaliyeed ka soo qayb galay oo aad iyo aad u fara badnaa ayaa waxay ka faa'iideysteen fursadan wanaagsan halkaan ciidii salaada lagu tukaday isla mar ahaantaana farxad iyo reereyn iyo waxyaalo fara badan oo carruurta Soomaaliyeed ay aad ugu ciyaaraan waalidiintuna ay ka heleen lagu soo bandhigay waxaana kamid ah hadaladoodii dadkii ciidul fidriga ka soo qayb galay sanadkan soo socota السلام عليكم وحنا السلام يا أمة الصومالية ودن عيد مبارك وحنا السلام يا جارهان هو يدي معانا من هذا الحرسي عرور تيدو الله سبحانه وتشوجا هنا ينشيب هبريره المعدن العلودن كل قد ميلي تشوجا غير هذا ودن بالسلام يا أضيق نيروبي تشوجا كل قد وحنا عيد مبارك عيد وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو مقعي غير شام محمد عوالي waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan xaaskayga iyo familygayga iyo inta ehelkayga iyo dadweynaha reer Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisana ilaahay si khayr qabta inuu gaarsiiyo assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir salaam calaykum ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamanaa anoo aabshir aadan nuur waxaan ka salaamayaa dhammaan heeladii iyo ehelkii inta maqalka muuqaalka taqaana nimanka ilmo Saciid waaye يا صدحار المآذنة إن شاء الله عيد ونعكس دمانتين أفريقيا شيء من تنتقل مقالك مقالك أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مركو جورس وحن عيد ونعكس لنا شغالة يبهذا يونيفرسيتي تي في مركو حكتا هو يدا يتمنى محمود فارح ومقالة بوس جوكتا يعني عيد ونعكس لنا ولا لها هي قرابة ذا سيجار وحن سلام يا عذيرك يا عمر حاج علي عمر قرة دكتور عبد القادر الجزيرة مصطفى عم إسماعيل أصحاب تيدا ميلو بيجوغان وحن عيد ونعكس أمد الصوماليين وحن عيد ونعكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عيسى محمود محمد وعلى عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مسلمين خاصة هو يدي أبي أو كنول دقمة مساء على الجدود حاج محمد عريف حاج لحي وعن كلون سلام يا عروتي دي حاسكي ونور وكنول أنا خاصة نور ويان كنول هاي مقالة ستور دال ليرا ما أنتوا عيد أيان وأن كم مقانا لكن تانية أيان ودير يا رستور دال قبقابيها جود ياسين وعن له آد وما سنتي يا جندي يا معوي حاج معدين رقدن أصحابته وسلامة يا عروتي ذا حاسكي كلامان مسلمين ترى ملك استجوان كل عام وأنتم بالخير الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مقاعي وأحمد حفيد محمود
ciid mubaarak baan ku sheegayaa Soomaaliya guys University TV Quba Mosque and everyone ciid mubaarak. Thank you. Pagi iilin baan joognaa ciid wanaagsan. Assalaamu calaykum. Hooyaday baan halkan ii keentay. hooyaday baan u mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan Soomaalida waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair. waxaan kaloo halka ka salaamayaa dhammaan qaraabadeena oo kala joogta London marka waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Shire fursadan maadaama ciid tahay in halkan ka salaamo dhammaan qaraabadeeda asxaabteeda waalidiinteeda meel kasta adduunka ka joogaan iyo dhammaan maaragtay wixii magacayga iyo muuqayga waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa Saciid Xaaji Cilmi waxaan halkan rabaa inaan ka salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leedahay laaya ciid mubaarak khaasatan gaar ahaan si gaar ah waxaan leeyahay ciid mubaarak insha Allah taala ciidan ciideeda ilaahay caafimaad in ku wada gaarto. السلام عليكم وحن سلام يا أمة المسلمين تملك استعدونك كنا شيء قاصة كينيا نيروبي وحن سلام يا ركنا حق استجوجو أبايد إذا مرايا حسن جامع يولش إذا دن يولار كيجا عبدي حسن يحن سلام يا وحن سلام يا عبدي حسن المهي سلام محمد أدين